waxaa dalka koonfur afrika lagu soo qatimay gogashii tacsida ducada iyo qur-aan akhriska ahayd ee ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas faracadde oo maalmihii lasoo dhaafay tiilay hoyga ganacsadaha weyn ee mahad cumar cabdi mahad libaax uu ku leeyahay magaalada cape town iyadoo wejiyadooda laga dheehan karay sida ay u saamaysay geerida gelgishay guri kasta oo soomaaliyeed ee ku timid ugaaska ayaa culummadii odayaashii dhaqanka iyo duubabkii gogasha ka hadlay waxay isku wada raaceen dhammaantood wanaagka sheegidda ugaaska iyo sida uu marka laga tago beesha uu ugaaska u ahaa sidoo kalena uu qof kasta oo soomaaliyeed ugu samafali jiray dhammaan qaraabada iyo asxaabta timid aad baan u mahad celinaynaa naga soo qayb gashay quraan akhriska iyo tacsida aad baan ka mahad celinaynaa waxaa noo bilaaban doona tacsidii iyo maaragtay ducayntii ugaaska cabdulaahi faracadde marka insha Allah waa maasantihiin waan soo dhaweynaynaa aad baan ka mahad celinaynaa si aad u sharafta leh u timideen oo noo soo qayb gasheen anaguna ninka la yiraahdo sidoo aan maaragtay soo dhaweynaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugaas runtii waxaa baxay Soomaaliyeed oo haddii Ilaahay ku roon yahay Soomaali oo dhan gilgilay ilaa raas Gambooni raas Casayr dad waxaan arkay ilaa waqooyiga xataa ka soo tacsiyadeynaya oo xataa weligood ay arkeen ugaaska aan laga yaabin laakiin maqalkiisa iyo qabashadii waxa uu qabtay oo kaliya maqlay marka waan u duceynaynaa maanta wax kale uma qaban karno inaan u duceyno oo niraahno qabrigiisa Allah u waasiciyo malaa'iktu raxma Allah ku aadiyo ayaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay uu haysto ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcadde waxaan uga tacsiyeynaa naftaanya iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan dhaqanka iyo ninka la yiraahdo ugaasyada salaadiinta iyo dhammaan dowladda Soomaaliyeed waxaan uga tacsiyeynaa iyo nafteenaba ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcadde ma ahan runtii anaga kaliya naga dhintay wuxuu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed nin dhaqan oo wuxuu ahay Soomaali ka dhaxeeya anaga naga dhashay ama kamida odayaasha jaaliyada ee Soomaaliyeed ee Western Cape waxaan ka tacsiyeynaa on tacsiyadaas intii ka horeysay intii dambeysay la qabaa ugaaskayna Allah naxariistee ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcadde waxaan leenahay Allah naxariisto qabrigiisa Allah waasiciyo ahlu janno Allah ka dhigo kulli wada dhimanaa waana la dhaqmaa qaraabadana waxaan leenahay ilaahay midkii oo martiya bedeli lahay Allah ka sahlo waaska sabr iyo iimaan Allah naga siiyo ugaas Soomaaliyeed oo ahay nin weyn baxay waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo anu kana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo dadku waa dhimanaya laakiin waa kala raq weeyahay wuxuu ahay aan duub Soomaaliyeed oo ahay Soomaaliyeed ka baxay dhammaanteen waa tabaynaa nafteena uga tacsiyeynaa aalkan uga tacsiyeynaa waxaan leenahay jannatul firdaws Allah geeyo inaan u duceynaa waxaan ahayn oo aan maanta u galnaa ma jiro Allah u naxariisto ugaaskeeni ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi qabrigana Allah u nuuro ehelka gaar ahaan karelana uga tacsiyeynaa waa loo kala dhib weyn oo Soomaaliya kanaxay geeridiisa khaasatan jaranjaradu say isu socoto unuka lafteeno waa la idin tacsiyayaan islaayno xanuunku waa nahayo waa naga dhintay ismeesh u joogno waxa ugu fiican waa inaan u duceyno oo Ilaahay u weydiino in qabrigiisa uu waasiciyo oo marti la jecel Allah ka dhigo annaga waxa uu muhiimsan oo ka qaadanayna waxa waaye ama ugaas ahaw ama ugaarsada ahaw in meeshaas ay ku dambayso marka naftayda iyo naftiina waxaan dardaarmayaa ka cabsi ehelkii oo ka baxana si khaas ah uga tacsiyeynaa waxaan Ilaahay weydiisanaynaa ugaas kale oo khayr badan Ilaahay ka soo saaro oo ummadda Soomaaliyeed anfaca oo muslimiinta anfaca inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcadde Allah u naxariisto sabr iyo iimaan saadaqna Allah naga wada siiyo qof kasta oo ka hadasha waxay ku tilmaantay inuu sabafale ahay sideedana waxa waaye qoftu waxa lagu tilmaamaa waxay tahay ayaa lagu tilmaamaa lagama been sheegin wixii uu soo qabtay ilaahay dartiisa ka aheeday asaguna bilay anfacaysa
ehelkii uu ka baxayna waxaan leenahay oon aniga ugu horeeya waxaan leenahay sabri iyo iimaan saadiqa allaha naga wada siiyo. ugaas cabdullaahi waxaanu leenahay allah u naxariisto mar saddexaad iyo mar tobnaad iyo mar 11aadba waxaan leenahay rabbi ha u naxariisto. annaguna waa isaga taxsiyeynaynaa oo ugaaskeenii uu ahaay qolo gooniya ma ahayn. dhalashadu waa meesheeda oo ugaas walba iyo dhaqan waliba qolow ka dhashaa laakiin dadka dhan waa u siman yahay. marka waxaanu leenahay waa noo sinaa samar iyo iimaan allah naga wada siiyo. laakiin tacsidaas ugaaska oo naloo soo istaajiyey ayaan ka qayb qaadanaynaa. walaalihii ugu horreeyaan la qabaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ugaas cabdullaahi ugaas xaashi ugaas faracade. haddee ugaaska loo tacsiyadaynahayo rag badan baa ragga hoose aan ku jirnaa laakiin anigu kuwa insha allahu naftooda ka bilaabayaan ku jiraayo karin laanahay. danjiraha Soomaaliya ee South Africa Ambassador Maxamed Sheekh Isxaaq Shiiqaani oo wakiil ka ahaa madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ayaa qadka telefoonka uga tacsiyeeyay ganacsade Mahad Libaax iyo hoggaanka beesha uu ka baxay ugaaska ee goobta fadhiyay. odayaasha dheergaradka ummadda Soomaaliyeed oo fadhida meesha iyo kuwa aan fadhino waqti u helino aniga iyo tiimkayga diblomaasiyiinta aan ka mid nahay waxaan halkan tacsiid tiiraaya lagu diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed geeridii ku timid allah u naxariistay ugaaska ummadda Soomaaliyeed uu ka dhintay ummadda islaamku ka dhintay waan ka tiiraayoonaa waan u duceynaynaa ugaaska geeridii ku timid waa ma dhintay waa ilaahay dhammaanteen waa wada soconaa ilaahay ha noo kala dheereeyo asagana qabrigiisa ilaahay waasax uga dhigo hadalkayga intaasuu ku egyahay tacsiidaasan ay ahayd marka intaas naga gadooma intii meesha fadhida anigoo ku hadlahay magaca ummadda Soomaaliya iyo diblomaasiyiintayda jooga safaaradda iyo shaqaalaha anigoo ku hadlay afkayga ka Mustafa Shiro ahaan iyo walaalaha jaaliyadda gobolka North West iyo Northern ee gudoomiyaha u ahay waxaan rabaa inaan halkan ka tacsiideeyo tacsiidii ku timid ugaaskeena qiimaha badnaa ee ka mid ahaa ugaasadii waxgalka ahaa ee farkutariska ah ee noo haray inaga geeriyooday inaan tacsiid u diro oo aan idhaahdo allah u naxariisto gadaashiisna ilaahay nama fidneeyo asna jannatul firdaws allah ka waraabiyo walaalihii oo ka baxay beelweynta Karanle khaasatan mursadana waxaan ilaahay u tacsiideeyo sabr iimaan allah idinka siiyo dhamaantiin. gunaanadkiina ganacsade samafale Mahad Libaax oo ay aad isugu dhawaayeen ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi ayaa ka soo qayb galayaasha uga mahadnaqay ajiibidooda gogashani tacsida ah. magacayga oo meesha la keenay waa rag badan oo iga fiicana jooga xooga waa la amaanay waana idinkaga mahad celinayaa guul weyn oo noo soo hoyatay arrintaas ugaaskana allah u naxariisto. waxaan u mahad celinayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa qaasatan jaaliyadda beelweynta Karanle guud ahaan tacsidii iyo ducadii kulankii baroordiiqda ahaa ugaaska ee dalka South Africa loogu dhigay gogashii furantay Khamiistii ilaa caawa oo Sabti ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa in allaale inta naga soo qayb gashay Soomaaliyeed kulanka ducada ee ugaaska oo labadii maalmood la soo dhaafay guriga ay tiilay ducada iyo kulanka Soomaatinka waxaan insha Allah noo soo xiri doona oo noo soo gabagabay doona madaxa qabanqaabada iyo kulanka ducada ugaaska xildhibaan Mahad Cumar Cabdi. gogashan waxaa ka soo qayb galay safiirka xildhibaano qonsuliyado prime minister kii hore ee Djibouti ahna afayeenka baarlamaanka Djibouti waxaa ka soo qayb galay xildhibaano Soomaaliyeed oo fara badan oo wadanka ku nool waxaa nagala soo qayb galay safiirka Soomaalida ee South Africa u jooga waxaa nagala soo qayb galay safiirka South Sudan hadeer u jooga dawladda Soomaaliya iyo dhammaan ganacsatada dhaqanka siyaasiyiinta mutacalimiinta ku dhaqan Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa. waxaan mahad ballaaran u celinayaa idaacadaha oo maartay qayb libaaxad leh ka qaatay waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa tiimkii taageerada oo walaalkay Cabdiraxmaan iyo badbaado iyo mataqaana Calas iyo Liibaan iyo horeeyaan oo mataqaana gacan libaax leh ka qaatay hawshan. Maria Indo Goobjoog TV Cape Town Koonfur Africa.